khatar ay tahay in ay halkaasi waqtigan oo kalena dadka ay si yar inta baabuurta u galaan dabeetana laga yaabo isagoo dhexda maraya inuu daadka kusoo bato marka digniintaasi ayay siiyeen dadku inay iska ilaaliyaan isla markaasina meelaha dooxyada iyo dadka reer miyiga iyo dadka laba waqtigan xilligan ay ka fogaadaan. Axmed Saciid Cigaad ayuu u mahadsan yahay. Militariga Kenyana waxa ay sheegeen in howlgal diyaarado iyo madaafiic ay ka qayb qaateen ay shalay ku dileen 31 ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab meel u dhow degmada Badhaadhe oo aan ka fogeyn xuduudda labada dal. hadalkaas si madax bannaan looma xaqiijin. Militariga Kenyana waxa ay sheegeen oo kale in halka ay ugu tageen gaadiid dagaal iyo sahay ciidan. arrintaas haddaba waxaa diidmo ka muujiyey gudoomiyaha degmada Badhaadhe Faarax Haybe oo goor dhaweyd aan waraystay waxaan marka hore weydiiyey waxa uu kala socdo duqeymaha ay Kenya sheegatay. هذا الزيارة وحقراعي وان مقليني هولا وسير إلا عدوك من البدادة وتشتي إلى 7 كيلومتر وحي لها أبو سير هذا عن شيء كرنوه وحي اللي لما تشيران وزيارة ونراعي وقراعي وجدور إلا قراعي وكل manaqaano waxay ku arkeen iyo waxay noo sheegeen in ayagu laakiin waxay leeyihiin meesha duur cidla ma ahayn saldhigyo al-shabaab ay leeyihiin ayaa meesha ku yaalay adigana gudoomiyihii degmada tahay meeshaas ma ku ogeydeen al-shabaab iyo saldhigyo inay ku leeyihiin adeer ma anaku waxba kala ma soconin waxbana nabadgala ma socodsiinin laakiin inay duurka garaacayaan oo maaragtay meelaha ay saaso ku ridayaan waa maqlaynay laakiin hawlgal anaku aanu maaragtay qaybtanahay maaha ama aan la socon waxay tiri waxbana lagama ogeysiin laakiin hawlgalka markii uu dhacay meesha ma isku daydeen inaad tagtaan oo aad soo aragtaan oo soo ogaataan waxa meesha ka dhacay ma adeer waa marka hore in maaragtay ciidamada deegaanka iyo maamulka iyo inay wax kala socdaan baa fiican oo nidaamkaas nidaam sax ma aha in maaragtay ciidankii maaragtay Soomaaliyeed joogo in la iska garaaco in wax lagala socdo oo ay dadku wax kala socdaan baa fiican oo ay ogaadaan waxa ka jira meesha. Faarax Haybe ciidanka Kenya hadal ayay soo saareen waxa ay sheegeen 31 dagaalyahan oo al-shabaab inay dileen gawaari in ay meesha ugu tageen saanad ciidan iyo sahay inay soo qaateen xoog intaas la eg oo degmadiinii Badhaadhe aan ka fogeyn see ku ogaan weydeen adinka adeer waxba kama jiraan waxaasi wax hadda ay iska sheegteen oo weeyaan waxaan anagu kala soconaa ma jiraan waxay noo keeneen oo leeyahay waxaan wadnaa oo ka qabsanayna ma jiraan. Faarax Haybe ayuu ahaa gudoomiyaha degmada Badhaadhe oo goor dhaweyd aan telefoonka ku waraystay qodobkaasna Facebook waxay ra'yigooda kaga soo dhiibtay dad uu kamid yahay Sakariye Maxamed Fooxaali oo Burca ka soo qoray waxa uu leeyahay hadiiba ay wax ka jiraan sheegashada Kenya ah in al-shabaab ay ku qaadeen weerar cir iyo dhul ah dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa la gudboon in goobtaas baaritaan ay ka samayso si loo sugo badqabka shacabka deegaanka ku dhaqan. Mustafa Ridwaanna waxa uu leeyahay Kenya maalin walba howlgal ayay sheegataa ciidan boo hadal haysana ma aragno marka ilama aha ayuu leeyahay in ay run tahay. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. hogaamiyaha mucaaradka ugu weyn Ruushka Alexei Navalny ayaa maanta maxkamad la hor keenaya magaalada Moscow kadib dibadbaxyadii shalay dhacay ee looga soo horjeeday musuqmaasuqa. Mudaharaadyada ayaa u muuqday inay ahaayeen boodiye qaawiskii ugu weynaa ee wax lagu diidan yahay tan iyo bannaanbaxyadii xukuumadda looga horjeeday ee dhacay muddo 5 sanadood ka hor ah. mid ka mid ah dadkii sawirrada ka qaadayay mudaharaadka oo la yiraahdo Evgeny Veldman ayaa waxa uu la socday Navalny markii la xirayay. Navalny is accused of organizing unlawful assembly. Navalny waxa lagu eedeeyay inuu abaabulay isu imaatin aan ahayn dibadbax caadiya. ciqaabta ugu yar ee uu ku muteysan karaana waa in la xiro 15 caanamaal. waxaan oran karaa muddadaas ayuu xabsiga ku jiri doonaa laakiin kiiska weyni waa in ururkiisii la xiray shalay booliiskuna waxa ay weerareen ururkiisii waxa ay bilaabeen baaritaan kiis ah xag jirnimo. kiiskan ayaa ah mid weyn waayo waxa laga yaabaa in ururkiisa si dhab ah loo weeraro. That would not be limited to 15 days or whatever but midowga Yurub ayaa waxa uu ka dalbaday Ruushka in la sii daayo 100 qof oo Navalny uu ku jiro oo la qabqabtay. xafiiska arrimaha dibadda ee Mareykankana waxa uu sheegay in xariga dadkaas uu yahay mid sii xumeynaya qiimka dimuqraadiyadda. Oleg Kozlovsky waxa uu kamid yahay dadka u dhaqdhaqaaqa mucaaradka waxaana uu qayb ka ahaa mudaharaadyadii ka dhacay magaalada Moscow.
Sometimes I feel quite disheartened by mararka qaarkood qalbiga ayaa iga jaba waxa ka dhacaya wadanka iyo sida loola qabsaday in laga aamuso waxyaabahaasi maalmahan waxa muuqda inay soo baxayaan dad diidan in la mamnuuco dibadbaxa hanjabaada dawladda dadkani waxay diyaar u yihiin inay khatar geliyaan xorriyadooda fayadhowrkooda mararka qaarkood caafimaadkooda xataa marmar in ay noloshooda khatar geliyaan si ay wax uga bedelaan ruushka waxa aanan isleeyahay taas waa la samayn karaa kaasina waxa uu ahaa mid ka mid ah dadkii mudaharaadyada ka sameynayay magaalada Moscow magaalada Kampala waxaa shalay lagu soo gabagabeeyay shirweyne looga hadlayay xorriyatul qowlka iyo xuquuqda aadanaha shirweynaha waxaa ka soo qayb galay ilaa iyo 50 ergey oo dalalka qaaradda ka kala socda kuwaas oo isku dhaafsaday kana soo jeediyay warbixino ku saabsan heerka xuquuqda aadanaha iyo xorriyatul qowlka ee qaaradda dadkii shirkaas daadihinayay waxaa ka mid ahaa Dr. Xasan Shire Sheekh oo madax ka ah ururka difaacayaasha dadka u dooda xuquuqda aadanaha ee qaaradda Afrika waxaana wax ka weydiiyay qodobadii ugu waaweynaa ee kulankaas looga hadlay qodobada ugu waaweyn ee laga hadlayo waxay bal marka koowaad bal xaalka uu yahay sida ku sugan tahay xorriyadda warfaafinta iyo qowlka iyo helista in wararka qaaradda Afrika ka dambana waxaa la fiirinayay progress noocay ah ayaa laga sameeyay xeerarka iyo mucaadooyinka ay Afrika maaragtay ay leedahay difaaca labadaas mawduuc ka bacdina waxaa la fiiriyay qodobka ugu dambeeyo in sidii loo hagaajin lahaa xaalado u ah in ahsaan uga sameynaya dadka xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqa iyo kuwa saxaafadda sidii u heli lahaayeen nidaam ay ku shaqeeyaan oo aynu ku badbaadaan